Assalaamu calaykum carruure waxaan idin hayaa sheeko kala caawa. Sheekadaas oo ku saabsan islaan dad qalata ah. Waxaa jiri jiray islaan waayeel oo dad qalata ah, taasoo deganeed meel tuulo agteeda ah. Islaantaas waxay dhashay gabar, waxayna jeclaan jirtay inay carruurta qalato. Laakiinse nasiib xumo waxay aragtay carruurtii iyo waalidkood oo bannaanka joogo. Sidaas darteedna nasiib xumo ma qalan karta carruurta waayo waxaa la jooga waalidkooda. Islaantii way iska baxday kadibna meel ayay iska istaagtay way fikirtay. Waxay tiri talow maxaan sameeyaa aniga baahi ayaa i hayso, gabadhaydina sidoo kale way baahan tahay. Xageen ka helaa carruur maanta aan qasho. Way iska socotay islaantii wax badan cabaar ayay lugaysay kadibna waxay aragtay carruur meel ku ciyaarayo balse weli waxaa la jooga carruurtii waalidkood ayaa dhinacooda taagan oo ma awoodo islaantii inay qaadato. Way iska soo laabato oo waxay tiri maanta waa inaan gaajadayda ku joogaa ani gabadhayda sababtoo ah waxaan qaata ma arko. Laakiinse nasiib wanaag markii dambe ayay islaantii waxay aragtay wiil yar oo banoon ka soo carartay qaadanayo. Islaantii way u soo dhawaatay jawaankii ayay ku ridatay wayna qaadatay gurigeeda ayay aaday iyadoo faraxsan. Gabadheedii ayay u tagtay waxay ku tiri maanta hooyo waan soo daalay balse markii dambe ayaa waxaan soo helay hal cunug oo meel iska taagan ee kaala hooyo macaan cunugan inoo kari cunne. Gabadhii ayaa waxay tiri hooyo macaan aniga gaajo saa'id ayaa i hayso, maanta aad ayaad u soo daashay wax badan ayaa maqneed annaga midda kale maana cunin 4 beri wax hilib ah. Laakiinse maanta haddaan helnay waa alxamdulillah. Maamadii ayaa tiri hooyo kaas inoo soo kari, mid kale ayaan inoo soo raadinayaa aan meel dhigano si aan berrito u cunno. Maamadii sidii ayay ku soo baxday. Isla markiiba waxay si kadis ku aragtay wiil yar oo meel taagan kadibna jawaankeedii ayay ku ridatay. Carruurtii wiilka uu la ciyaaray ayaa raadiyay markay waayeen waalidiintii ayay u sheegeen. Waalidiintii dhan ayaa soo baxay kadibna waa la waayay. Maalintaa wixii ka dambeeyay waalidiintii waxay bilaabeen inaan carruurta kaligood la soo dirin oo la soo raaco. Laakiinse nasiib wanaag islaantii dad qalatada ahayd wax carruur ay qaadato way weysay. Sidaas ayay maalin walbana u wareegi jirtay waxayna tiri talow maxaan sameeyaa carruurtan iyo waalidkood mar walba isla socdaan oo carruurta waa la ilaaliyaa. Laakiinse aniga sidaan kuma noolaan karo waa inaan xal keenaa si aan ku helo hilib. Islaantii way soo baxday aad ayay u soo socotay kadibna waxay aragtay wiil yar oo saaran geed korkiisa. Markaas ayay waxay ku tiri ayeeyo macaan aniga gaajo xun ayaa i hayso ee geedka cambe iiga soo gooy. Wiilkii ayaa wuxuu yiri aniga geedka ma ka soo goon karo cambo ee adiga kaale ka gooso. Ayadana waxay tiri ayeeyo ii soo gooy aniga islaan weyn ayaan ahay ee halkaas ma kori karo waa inaad cambada ii soo goysaa oo ii keentaa. Wiilkii yara ayaa wuxuu yiri aniga cambo ma soo goon karo halkaasna ma gaar. Islaantii ayaa waxay tiri aniga waxaan ahay qof waayeel ah ee geedkaas waxba kama goosan karo maandhow. Wiilkaygiyow adiga ayaa wiil yar ah cambadii ii soo gooy. Wiilkii wuxuu yiri eeda aniga waxba ma soo goon karo ayeeyo ee adiga kaale soo gooso oo geedka soo fuul haddii kalan halkaaga iska joog ayuu yiri. Islaantii waxay tiri war maaniga saas igu leedahay oo ayeeyada camal ah oo qof weyn oo gaajaysan ah oo maanta dhan ah waxba cunin ee wiilkaygiyow cambada adiga aqtaada ayay u dhowdahay ii soo gooy. Wiilkii wuxuu yiri ma soo goon karo aniga cambadii. Islaantii way iska fariisatay kadibna waxay bilowday ee fikirtay inay oyso oo waxay dhahdaa aniga waan baahanahay muddo 3 berina waxba ma cunin. Wiilkan yarka ma ii maqlaaya miyaa muxuu ii dhageysanayaa ma ii soo gooya cambada madaxa dhan ayaa i wareeraya. Wiilkii yaraa ayaa wuxuu ku yiri ayeeyo maxaa kaligaa iskula sheekaysanaysaa oo maxaad sheegaysaa. Markaas ayaa waxay tiri islaantii aniga baahi badan ayaa i hayso waan kuu sheegay. Wiilkaygiyow adiga qalbi jilicsan ma lihid miyaa iima naxaysid miyaa aniga waxba ma cunin muddo 3 beri ah gaajo xun ayaa i hayso dhibaato badan ayaa iga muuqata soo iima jeedid ee wiilkaygiyow ii soo gooy cambihii. Wiilkii yaraa ayaa u soo gooya cambadii wuuna soo degay wuu keenay. Markuu cambadii u keenay ayay faraxday jawaankeedii ayay soo baxsatay way ku ridatay. Laakiinse nasiib xumo waxaa arkayay nin tuulada degan oo cunuga qaadanaysa arkay kadibna wuu daba galay wuxuu fiirinayay halkii ay degan tahay
inuu soo arko si loo soo weeraro. islaantii ayuu daba socday, kadibna maamadii oon ayaa qabtay dad qalatadii, waxayna tiri halkan ayaan dhiganayaa juwaanka iyo cunuga, kadibna webigaas ayaan biyo kasoo cabayaa. intay ku maqneed ayuu juwaankii furay, kadibna cunugii ayuu ka bixiyey. markaas ayuu wuxuu ugu guray coos, dhagaxaan iyo qoryo si juwaanku culays u noqdo. kadibna wuu soo baxay, wiilkii ayuu soo qaaday, dadkii tuulada ayuu arrintii u sheegay. islaantii juwaankeedii ayay iska qaadatay dad qalatada ahayd, kadibna waxay geysay gurigeeda. markaas ayay ku tiri, gabadhaydiyey, cunug kale ayaa inoo wadaaye, kaali inoo kari hooyo macaan. gabadhii ayaa soo baxday, tiri hooyo ii dhiib juwaanka. waxay tiri ii dhiib hooyo juwaanka. hooyo maanta juwaankaaga waa juwaan weyn ee culuse ka muuqdee, maxaa ku jira hooyo juwaanka sidaan u weyn oo buuxa? markaas ayay tiri hal cunug ayaa ku jira. oo hooyo maxay ta cooska iyo qashinka kor ka saaran cunuga? markaas ayay maamadii eegtay, markaas ayay tiri dee wuu ku jiraaye eeg, si fiican maada u fiirin miyaa? gabadhii ayaa tiri hooyo waxaan uma eka cunug, wuxuu u egyahay inay wax kale ka buuxaan. maamadii way yaabtay, waxayna tiri cunuga yaa qashinka igu guray, meesha cunug ayaa ku jira, wuu iga baxsada miyaa? waa inaan dib u raadiyaa cunugaas, aniga kama haraayo gabadhaydiyey, hadduu waxaan qashin yahay waa dhibaato kalo maanta waa leeqayaane. way baxda maamadii, jidkii ayay ku laabatay ee ka timid. markaas ayay waxay aragtay cunugii oo kasoo badbaaday oo meesha taagan. markaas ayay ku tiri waryaa maanta waad iga badbaaday, laakiin maalin dambe aniga kuma dhaafayo, waana ku qabsan doonaa markaa. iyadoo rabtay inay cunugii qaadato ayaa isla markiiba waxaa loo diyaariyey xarig. islaantii halkaas ayaa lagu xirxiray, geed meesha yaalla ayay ku xireen. dadkii xaafadii way isku yimaadeen. markaas ayay waxay tiri maxaa iga rabtaan aniga iyo xeraysaan? aniga maxaa idinka sameeyey? islaan waayeel ayaan ahay. ninkii arkaya ayaa ku yiri adiga mateed islaan waayeel, waxaa tahay dad qalato. cunugaas yarka markaa qaadatay aniga ayaa markhaati ka ahaa uu ku arkayay. hadeertaana annaga waan ku gubaynaa, waan ku dilaynaa, waayo ilmaha xaafadda la waayay dhan adiga ayaa qashay. islaantii dab ayaa lagu shiday, waxayna go-aansadeen dadkii xaafadda ay isku raaceen inay gubaan islaantan dad qalatada ah oo caruurtii dhammaysay. kadibna dabkii markii lagu shiday ayaa waxay tiri aniga haddaan dhinto aad i dishaan, gabadhayda ayaa nool, iyada ayaa idinka aari doonto, waxaad igu samaysaan oo dhan, caruurtiinoo dhan iyada ayaa cuni doonto. ninkii arkaya ayaa wuxuu yiri daaya ka damiya dabka hal mar, waa inaan aqli keenaa oo iyadii gabadheeda hal mar aan wada dilnaa, haddaan dhaafna gabadheeda ayaa ilmaha inaga cuni doonto. kadib gabadhii hooyadeed markay soo daahday ee imaan weyday ayay guriga kasoo baxday si hooyadeed ay usoo raadiso. nasiib wanaag waxay aragto hooyadeed oo meesha ku xiran. alla hooyo maxaa kugu dhacay? kadibna isla markii iyadii ayaa xarig kale lagu xiray, geedkii ayaa labadoodii lagu xiray. ayadoo la raba in la gubo ayaa waxaa imaaday nin sixiroola ah. markaas ayuu yiri maxaa dhacay? qisadii dhacda dhan ayaa looga sheekeeyey iyo dhibaatadii islaantan ay samaysay. kadib ayuu wuxuu yiri anaa idin hayo arrin ka fiican taasi, kulligiin waxaan idin dhiibayaa tahliil ama sixir, waa inaad idinkana ku aqrisaan anaa aan ku aqriyay. kadib biyahaas ayaa ku firdhinaysaan caro, ama caradaas ayaa ku firdhinaysaan. markaad ku firdhisaan kadib ayaga ayaa iskood u guban doono. dadkii xaafadana dhammaantood sidii ayay isku raaceen. islaantii iyo gabadheedana halkaas ayaa lagu gubay. isla markiina waxay noqdeen dambas. kadib caruuree maalintaas wixii ka dambeeyey wax ilmaha xaafadda qasho ma lahan,